kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale maxamed xaaji ingiriis oo shahaadada PhD-ga ka diyaarinaya jaamacadda Oxford ee magaalada London ayaa muqdisho ku soo bandhigay dhawaan buug cusub oo uu qoray buuggaasi oo uu magac daray qarankii isqoorgooyay waxaana buuggaasi ku jira waxyaabaha dhibaatada u keenay Soomaaliya iyo sida looga bixi karo iyadoo qaybo badan buuggaasi uu taabanayo maxamed xaaji ingiriis ayaa hadda igula sugan studio Universal ee magaalada Muqdisho maxamed marka hore ku soo dhawaad Universal Muqdisho dabcan London aad ka timid magaalada ayaa joogtaa subax wanaagsan waa mahadsan tahay soo dhaweyntiin xilligan oo kale London waxaan u maleynayaa waa la jiifaayo mararka qaar dadku soo majeeda aad way maxamed waxaad soo bandhigtay buug aad ugu magac dartay qarankii isqoorgooyay dabcan xaaladda Soomaaliya ayuu ka hadlayaa inta aanan gelin gudaha buuggaas iyo macluumaadka ku jira maxaad ku dooratay magacan qarankii isqoorgooyay waxaan waday muddo dheer oo adiga dhan ilaa iyo 5 sano daraasad ku saabsan sababihii keenay in wadanku qaranku burburo ana baabao waana daraasad la xiriirto ku xiriirsan cilmi baarista guud ee Afrika ka socota ee lagu darsayo qaramada burburay Afrika sababay u burbureen si fiican looga qoray waxna loona darsay looguna helay xal wadamada Sierra Leone Liberia Cote d'Ivoire Chad Congo Rwanda Burundi ilaa iyo Angola meesha lagu wareeray oo xaaladeedu ay noqotay complex xaalad wareersan oo madax laga jaray waa Soomaaliya marka waxay la noqotay in mutacallimka Soomaalidu door iyo mas'uuliyad gaar ah ka saaran tahay inuu dib u darso wadankiisa soo ku eegaya indho cusub iyo qaab cusub oo soo ku fiirinay kuwa kale sidii loo soo darsay marka sidaas ku dooratay qarankii isqoorgooyay marka sidaasaan ku doortay 5 sano ka shaqeynayay waana anoo raadiyay helayna xog cusub haday noqoto wixii ay qoreen sirdoonka ruushka iyo kii Mareykanka labadaba ee la xiriirsan baabaa iyo burburka wadankan ka dhacay iyo wixii ay ka qorayeen marka title-kiisu waa The Suicidal State in Somalia qarankii asagu qoorta iska jaray ee Soomaaliya subtitle-kiisuna waa The Rise and Fall of the Siad Barre Regime soo ifbixii iyo dhaxalkii xukunkii Siad Barre 69 ilaa 91 waqtiga iyo time frame-ka waqtiga ku eg ayaa wuxuu yahay waqtiga ay bilaabatay structure-ka qarannimo iyo qaabkan u dhisanay 60 in dib uu u qaabaysmay oo uu isbedelay 69 ka dambeeya dabcan buug ma taabanayo may wuxuu ku egyahay 91 ka dambeeya waa buug kale waa iyadana daraasad kale laakiin xilligaas ayaa waxa isbedelay sida aan dad badan oo Soomaaliya yani cilmi lagu ma fiirin structure-ka u qaabaysmay siyaasadda Soomaaliya oo ah civilian qaab rayd ah ayaa wuxuu isu bedelay qaab militarized ah oo qori caradiis iyo xukun ay noqotay marka waxay noqotay yaa xukunka haynaya kan qoriga xoog leh qori sita ayaa xukunka qabsan doona marka sidaasaan burburka iyo xoogiisa noogu dhacay waad ogtahay wixii ka horeeyay 69 ilaa 60kii iyadoo Soomaaliya markeedii horeba ay ku dhalatay qaab dimuqraadi ah waxaan isku qaabeynay oo siyaasadda iyadoo ku socotay qaab rayd ah oo doorasho lagu tartamayo waxa ka qaldanaadaan doorashooyinkaas laakiin waxay ahaayeen doorashooyin dadku intuu tartamo qofka doonaya inuu wadanka madax u noqdo ama madaxweynaha noqdo ama baarlamaan ha noqdo ama si kale u tartamay qofka doonaya inuu public office u tartamo in meelaha seejooyinku yaalaan uu ka soo tartamay laakiin qaabkaas ayaa isbedelay 69kii waxay noqotay in ninka wax doonaya uu jabhad asaas waa gartay aan gudaha u galna buugan maxay yihiin ama waa kuwa qodobada muhiimka ah ee buugan ee la taaban karo marka aad wuxuu ka hadlayaa dhowr waxa ugu yeeray turning points ama watershed xaalado isbedelay oo sidii kuwii hore ee lagu socday ahaayeen iska bedelay waxa ugu soo horeeyay 69 laftirkeeda oo laba xaaladood oo waaweyn isbedeleen kow waa 26 March 1969 doorashadii u dambeysay oo dimuqraadi ah oo la codeynayo oo wadanka ka dhacday qaabkay u dhacday oo run ahaantii ah qaabkii u cudur daaray ama siiyay legitimacy in militarigu wadanka qabsado doorashadaas qaabkay u dhacdaan aad ugu dheeraaday waxaan eegay systemkay ku salaysnayd structure-kii qaabka loo galay xisbiyadii oo 64 xisbi ahaa magacyadoodii iyo siday u kala tartameen platformyadii ay kala wateen iyo programmadii iyo siyaasadii ay ku socdeen iyo sida doorashadaasu ay u sheegaraysay xaaladii siyaasadeed ee wadanku markaa ku jiray waxa kale oo ayadana jirta oo aan xusay markii militarigu meesha qabsaday dhaxdoodii 71 oo dhaxdoodii ay isqlaafeen iyo 72 oo ay bilaabeen inay dhaxdooda iska dilaan iyo 75 January oo la dilay culamaa u diin 10 ah
dareenka dadka wixii ay ku abuurtay wadanka dibadda dareenka laga haystay iyo gudahaba sumcadda wadanka waxa sida ay gaarsiisay iyo meesha ay ku dhufatay iyo dagaalkii 77 oo ogtahay cold war xoogii iyo dhibaatada uu noo geystay in ciidankeenu ku dumay wax ka badan 75 xoogii dalka qalabkii aan lahayn afar dhig oo saddex dhig inaan kaga soo dhaaqnay gudaha Ethiopia oo ciidan jaban oo tabar daran oo baaba'san oo wadanka dib ugu soo noqday oo traumatic ah oo damcay dawladda inuu dib u rido marka xamar xabadu ay ka dhacday subax 9 April 1978 dhinacan ex control la isku dagaalay oo military ka tirsanaa oo soo laabtay ay damceen inay madaxtooyada xoog ku soo galaan baaba'aas iyo burburkaas aan galnay oo aan 91 bilaaban ee ka hor structure-keedii soo socday marba meel ay ku soo dhaceysay ayaan aad iyo aad ugu sameeyay daraasad dheer marka ereygan qarankii isqorgooyay halkuu ka taabanaya uu ka saameynaya xaaladda wadanka Soomaaliya iyo guud ahaan wixii la soo maray saameynta koowaad oo sameynaya waxay tahay wixii ka horreeyay daraasadihii la darsay burburka Soomaaliya daraasadaha iga horreeyay oo qofkii koowaad oo darsamay waxa bugu exactly soo dhinac uga leexanay laakiin aan isku daraasadnahay professor Daniel Compagnon oo ah nin Faransiis ah waa ninkii ugu horreeyay oo sid fiican oo cilmi ah u darsay burburka dhaca qaasatan xukunka militariga rejiimka waa ninka kaliya darsay kan labaad waa buugan marka daraasadiisii aan aqriyay dhinac kale aan uga leexday laakiin jidku uu asagu qaada maahan mid kale aan ku fiiriyay asagu wuxuu eegayay political economy-ga iyo barasharadii ay noo keeneen qaxootigii 77 ka soo galay iyo waxyaabo noocaas ah anigu marka waxaan iyo individualistic hataa dadkii shakhsiyaadkii u fiirinayay waayo 2 sano halkan macallin ka ahaa 80 iyo 2 ilaa 80 iyo 4 macallin ka halkan 2 sano ka horeysana safaaradda Faransiiska xamar uu shaqeeyay nin si fiican u darsay Soomaaliya la socda dhaqankeeda iyo ayuu ahaa iyo taariikhdeeda dheerba historical trajectory marka aniga waxaan dhinacan u leexday wuxuu yahay waxaan qiimeynayay structure-ka meesha yaal individual qofku hadduu yahay hoggaan ama siyaasad waxaa mar walba influence garay ama saameyn ku yeesha structure-ka iyo political system-ka meesha yaalla nooca uu yahay kaasaa uu ku qasban yahay inuu raaco dhinac uga leexan karo unless uu bedelo maaha waay maxamed dabcan markaad qoraysay sidaad sheegtay waxaa jiray xigashooyin oo ay ka mid tahay ninkan Faransiiska hadda aad ka soo xigatay ma jiraan meel kale aad xigasho ka samaysay markaad buugan qoraysay ha markii buug cilmi la qoray horta waxaa loo baahan yahay laba waxyaabood buugga waa buug academic ah ku talgalkiisu waa inay akhristaan Soomaaliya way u baahan yihiin horta Soomaalidu inay akhristo laakiin waxa ugu weyn yani ugu talagalay oo ka fikiray markaan qoray waxay ahayd ardayda sameeyay PhD oo daraasaysa Afrika oo dhan iyo kuwa Soomaali darsaysa iyo kuwa adiga soo gaaray ilaa master level ay rabto waxaan inay darsaan oo specialistiyaasha dadka la yiraahdo ama qobarada wax daraasayso laba doodood ayuu buug ku xiriirsan yahay marka dooda koobaad waa dood cilmi ah oo Afrika oo dhan ay ka socotaa daraasaadkeeda oo waxa laga doodayaa Afrika waa tay xor noqotay badankeed 1960 ilaa 50 wadan waa tay xoroobeen wixii ka dambeeyay ilaa 60 inta kale ay xorooday intooda badan waxa marka doodu tahay maxaa ka reebay Afrika wadamadii Latin America iyo Asia ee xilliga isla xoroobeen doodu marka waa laba doodood waa midig iyo bidix waxa hogaaminaya nin caalim ah weyn oo Hindi ah Uganda ku dhashay Ugandes ah oo la yiraahdo Maxamuud Mamdani wixii dadkan daraasaya ama yaqaan political science cilmiga siyaasadda si fiican u yaqaanaan wuxuu ku doodayaa waxa Afrika reebay gumaysiga reebay oo abuuray qaab ay ka bixi karin oo wuxuu uga tagay tarab wuxuu u dhigay uga tagay shabaq midigta dooda taala waxa wada Achille Mbembe waa nin Cameroon ah Sorbonne ka baxay jaamacadda weyn ee Faransiiska wuxuu asagana doodiisu tahay maya ee Afrika ayadaa is cuntay ayadaa dhaxdeeda gacmaha isjartay ayadaa lugaha isgoysay ayadaa isbaabi'isay waxa gumaysigu isaga tagay labada doodood aan dhexdhexaadiyay chapterka koobaad ee buugga marka mid cusub ayaan ka dhex qaaday oo aniga aan leeyahay oo iga raaci doonaan culumada scholarada iyo studentska Afrika iga qaadan doonaan taa cusub waxay tahay yes gumaysigu waa run waa nooga tagay tarab run weeye Afrikana dad waxay ahaayeen aan u qaabaysnayn qarannimo gumaysiga koor laakiin aaway mas'uuliyadda ay lahaayeen hogaamiyaashii hogaamiyay Afrika kuwii qilaabay dawladnimadoodii xukunka xoog ku dumiyay mas'uuliyaddoodii aaway burburka ay horseedeen marka iyo xataa saad ogtahay militariga qabsada Afrika hadaad eegto Mobutu Sese Seko hadaad eegto ilaa iyo West Africa ilaa iyo Soomaaliya raggii qabsaday waxay ahaayeen raggii uu tababaray gumaysiga
marka mas-uuliyadda gumaysigu kasoo galaya aba taa usii weyn laakiin aawa doorka ayaga ay lahaayeen meesha aan ka galay marka meeshaasay ahayd doodayda taas waa tan afrika la xiriirto midda kale dooda kale waxay tahay dooda ka dhex socota Somali Studies daraasaadka cilmi baarista Afrika dad ku doodayaan qabiil ayaa Soomaali burburiyay dad ku doodayaan jabhad ayaa burburiyay dad ku doodayaan cold war ka burburiyay dad ku political economy san ku sheegay ku doodayaan Daniel Kombayon kaliya maaha waxa jirta ayadana laba gabdhood oo wanaagsan mid oo labada Mareykan iyo gabar ayadana dhaja saddex weey marka kuwaasuna dhinacyadaas aan sheegay qabsadeen laakiin ayadagana mid kale aan aniga ka dhex qaaday san ku sheegay dood kale cusub ayaan uriyay way dabcan markaad qorayso dadku inta badan buugagta akhristaa waxa qaarkood laga yaabaa inay yiraahdaan maxamed fikirkiisa ayuu noo soo qoray marka maxaa farqiga u dhaxeeya buuggan aad qortay iyo fikirkaaga gaarka ah ee aad ka qabto xaaladda aad ka hadlayso sideese dadka aad u gelin kartaa kalsooni ku aadan in buuggan uu ka madax bannaan yahay aragtidaada buugagta cilmiga marka la qorayo waxaa loo qoraa si scientific ah wax kastoo qortaa waxay u baahan tahay horta kow inaad caddeyn ogeysid safxadda aad qorto oo dood ah labay u kala baxayaan midna waa waxa weeye wax cusub oo information qorayso midna waa analysis adigu samaynayso midna waxa weeye dood argument aad curinayso waa gartay ood leedahay waxa dhacay sidaasay ahaayeen for example magacaabistii ra'iisul wasaare Cabdirashiid Cali Sharmaake July 2 67 oo magacaabay Maxamed Ibrahim Cigaal oo u soo magacaabay ra'iisul wasaare oo kale argumentigii wuxuu ahaa doodayda aan galiyay ma aha fikir waa dood waxay ahayd landmark wax talaabo weyn oo qaaday ahayd ayaan ku dooday oo sababtu maxay tahay waxa jiray walaac waxa jiray walwal iyo calal xumo ay qabaan shacabka ku nool waqooyi oo ku saabsan dawladnimadeena iyo qarnimadeena dhalatay 60kii qaybtii ay ku lahaayeen lagama siin waqooyi dood waxay ahayd grievances legitimate oo sharci ahayd marka laba mid ayaa uga fushay magacaabista Cigaal oo magacaabay waa doodaydu oo dood cusub ah kow in Cigaal oo ahaa nin baro western ah oo reer galbeedku ay xiriir leeyihiin inay ku qanceen marka dawladda Soomaalida ee jirta markaas oo u leecaysay dhinaca reer galbeedka marna u leecaysay dhinaca eastiga oo ah Sovietka meel ay u socotaan la garanayn marba meel ayaa la aaday 60 ilaa 69 okay midda labaad waxay tahay waxa lagu qanciyay shacabkii waqooyi ku noolaa oo ku qancay magacaabista Cigaal la magacaabay taas waa doodda labaad oo ka sii horeysay taas maxay tahay 61 waxaan galnay doorasho oo madaxweyne lagu tartamay hal sano hayay aadan Cabdulle Cusmaan si ku meel gaar ah madaxweynayaasheena sida hadda tahay 4 sano la doortaa laakiin taa 6 sano la dooran jiray marka 61 waxa tartamay hogaamiyihii mucaaradka rayidka ah ee baarlamaanka iyo madaxweyne aadan Cabdulle Cusmaan iyo Sheekh Cali Jimcaale Baraale marka ayada laftirkeedan dood cusub ka curiyay sida loo galay ayada laftirkeeda midaas waxaan kala doodo badan ka curiyay dagaalkii 77 ma waxaan u jabnay military regime aan ku jabnay yani military aspect dhinaca military man ka jabnay ma dhinaca political aspect man ka jabnay dhinaca siyaasadeed mise waxaan u jabnay diplomatic gaffe qalad diblomaasiyadeed oo qarankeena ka dhacay oo aqoon la'aan diblomaasiyadda naga haysata ayaan ku jabnay ayaan curinayay marka doodahaas oo dhan curinay tan muhiimka u baahan run ahaan in wax laga qoro oo ayada laftirkeeda buug u baahan jeelasha Soomaaliyeed ay tahay inay bartaan cashar ka bartaana waa tartanka ay galeen aadan Cabdulle Cusmaan iyo Sheekh Cali Jimcaale Baraale oo aan wax laaluusha lagu dhiibin wax xilal lagu ballan qaadin saasay tahana dirqi ay u kala bixi waayeen maray dhacday sida dad badan aan ogeyn in Sheekh Cali Jimcaale uu ka adkaaday aadan Cabdulle inta tartanka lagu jiray hase aatee madaxweynaha marka dambe uu ku soo baxay si dirqi ah madaxweyne aadan Cabdulle waa gartay maxamed markaad fiiriso xaaladda oo dhan buugga aad qortay iyo sida ay wax yihiin laga soo bilaabay xilligaad buugga qortay waxa uu ku saabsan yahay ilaa dabcan 60 iyo 9 ka soo bilowday sidaad sheegtay ilaa had 91 aad keentay iyo wixii ka dambeeyay wadanka uu burbur sii galayay inkastoo hadda aad moodin uu soo kabsanayo mushakilka Soomaaliya ma isleedahay uu ka badan yahay shabaab oo dagaalka wada wadanka mise waxaad leedahay aaminsan tahay haddii shabaab laga adkaado ama la heshiiyo in ay hawshu inta ku dhamaad doonto xaaladdu ay isbedeli doonto mushkiladda Soomaaliya maanta taagan waa mushkilad ka qoto dheer kana qaada dhig balaaran shabaab
dad badan oo ku doodaya waa arkay si simplistic ah haddii shabaab meesha ka baxo dee wadanku dhibaatada waa dhamaanaysaa waa dadkaas waxay la mid yihiin dadka ku doodi jiray haddii xukunka maxamed siyaad meesha ka baxo saas ayaa waa fiicnaanaysaa haddii jabhaduhu ka baxaan meesha waa fiicnaanaysaa problemka Soomaaliya waa laba qaybood waa internal structure iyo external structure mid gudaha dhib naga haysto iyo mid dibadda naga haysto structure xoog leh laakiin Soomaalida haddaan uga sheekeeyo markaan jaamacadaha ka hadlayo iyo markaan discussionada ka hadlayo workshop email cilmi looga doodayo